السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتها بوندا وضيال ميل كستو أنا قد داونا إنسان وبرنامج كيني بندق الدقة أو أدنو جبرتين وقت جنو كلاينا نريدين كسوت بينو مقباهيها الصومالي كيبل تي في دا وضيال برنامج كينا نعاوا وحان كسو قادن دونا كل يبقى مركا آد موقعي أركتان وحفلتان أو آد تعيشهين إن كستو وحيابا كلا كسو قادو دنك سوغان تا يدقنك ayay umada Soomaaliyeed aad u xiisaysaa haddaba caawa waxa marti iigu ah oo aan idinku soo dhaweynaya abwaan weyn Ilaahay baa weyn oo waaxidahe geeyiga Soomaalidana aad looga wada yaqaano waa aadan tarabi oo daawadayaal aanan hadda idin sharaxayn oo aanan idin oranaynin aadan waa kuma aadan yar iyo waaweynba way yaqaanaan taariikhdiisana way ka dheregsan yihiin hayeeshee waxaan caawa nasiib u yeeshay inaan aadan soo hor fadhiisto idinka iyo isagana aan idin dhaxeeyo suugaantu waa dhaxal dadka ayaa iskale abwaanku intuu nool yahay ayaa suugaantiisa la kaydiyaa mar hadduu abwaanku dhinto suugaantiisu ka daba tag male inagoo dhan baa soconayna suugaantu waa dhaxalkii carruurteenna inaad ila dhuuxdaan ayaan aad u jecelahay aadan aad iyo aad baad u mahadsantahay waanan ku faraxsanahay caawa inaad igala soo qayb gasho barnaamijkan waanan ku soo dhaweynaya ahlan wa sahlan deeqan maxamed qalin diyaar baan waxay intii way jirtaa waxyaabo badan oo u baahan in bulshada looga tago haddaad si adigu ku dadaashay inaad raadiso bal cidda wuxuun laga heli karo waa u hagar baxaynaa wixii aanu karaan u heli karno aad baad u mahadsantahay abwaan aadan tarabi daawadayaal barnaamijkeena caawa wuxuu idinka imanayaa magaalada Hargeysa oo xaruntii fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan aadan idinka reebo suugaan aad u fara badan oo waxyaabo badan taabanaysa hadday dhaqanka tahay hadday suugaanta tahay iyo hadday xagga nature-ka ama dabiiciga tahay xayawaanka dhirta iyo waxyaabo badan aadan intaas waxa aan filayaa inay inoogu filan tahay hordhici barnaamijkeena baynu guda galaynaa suugaantaadu aad bay u fara badan tahay maansooyinkaagu aad bay u fara badan yihiin abwaanintana way ka dhaxaysaa intaas oo dhan waxaad moodaa si gaar ah adigu sheekooyin aad leedahay ama maansooyinkaaguba ay gelayaan xayawaanka dhirta bini aadanka intaba maanta waxaan jecelahay bal intaan xaqi suugaanta maansooyinka aan ka yara leexano inay soo gasho waxyaabaha aan ka hadlayna mooyaane inaan ka hadallo bal sida loo nool yahay xayawaanka sheekada aan ugu horeysiinayay aan jecelahay inay dadku inala dhageystaan waa sheekada dad qalatada waxa la yiraahdaa qof dad cuna waxa ugu horeeyay dadka Soomaalida bal sheekada adigu maxaad ka aaminsan tahay sidayse ku dhacday badana aniga ku sheekeeya dadka cuna Soomaalida ugu horeysay taasuna waa taariikh aan helay gobolka Sanaag bay ka kacaan dad qallo badan waxa kamid ahaa dhayla liilaaf hadii jeer kuwan qaaqda marka la daawado carruurta ay daawadaan madax bilaa indhaha si ah meelaha ma jir ma ku aragtaa madax gorof baa loo jiray madax gorof dhayla liilaaf halowle heesaayi dhagaaga fadhi garhaye niman caynkaas ayaan baaciye cadoowe niman caynka wada xaasoo dad qaltooyin baa dad qalayahay waxa soo dham gaari jida wowgi oo Jibriil Goray la oran jiray way saleendeen dad qalkayo dhayla liilaaf gaari jidna waa kii shalay dhintay Jibriil Goray bay saleendeen dhayla liilaaf oo dad qala oo balaaya marka dhayla liilaaf kaasoo ahaa waxaan la yaabo imika ay leeyihiin waa sidaariyo dad qaaqdeen tusayaan oo wax inaga neela ka xaday dhayla liilaaf waa la qabtay god baa lagu riday buurahaas godeed baa jiray sheelah waa lagu riday soo dhagax baafka laga saari jiray halkaas wixii kasta ku baqtiyay jiray god baa lagu riday 10 sano oo laga nastay maalintii dambu isagoo yaroo bisada leeg oo madhay iyo islaan xiis ku socota ku soo baxay iska raaca 10 sano markaan god buu ku jiro meel alla meel ka soo baxay meel wax ka cuni jiray la garanayo dabeeto halkaas uu ka raacayo markay xiis yar u jireen
islaantii ka baydhay islaanta isladii waa bahar yar oo soo guriyo waxaasay moodaysaa badii meel buu mariyo ka sii qaato xiis soo tago wuxuu yidhi nin aan iminka magaciisa ahayn waan soo heli doonaa yuu yidhi hebel ma joogaa waase le habeen dambe u imanaya doonidii hebel buu la socdaa wuu sugay markii uu yimaa loo sheego anigoo nin baa ku sugayo waabaloo masaajid halkan uu sii saaxdayo uu kaxeeyeyo waxay nacaynkaas dabadun buu la yirbaxo qoortu kala jabiyo waa cunay waana raggii hogga ku riday ayuu ka mid yahay ninkaas oo weligii uu ka aarsaday maalintii dambe meel tagayo miyigaasoo wuxuu bal wax dhulkaas soo socda iyo aad ka eegatid dabadna isagoo geedkii fuushan baa jibriil gorayo sahana ayaa dabadna arkay waxaa geedka saaran jibriilla waa ku soo dhici waay wuu u daadego jibriil buu eryaday rag oo dhanna wuxuu kala yaqiinay reer walba iyo nin walba ninka dheereeyay ninka xoogga weyn way kala wada yaqaaniin dadqalaas dee saw meesha ma maydhan waa deegaankaasi ka dhasheen yaa xaggaasay ka dhasheen dabadna nin wal oo dheereeya iyo nin waloo xoogaba wuxuu u yaqaanaa si cajaayib u yaqaanaa way kala wada yaqaaniin okay markuu dee gaari waayey ayuu yidhi war ma jibriil goraybaa markaasuu markaasuu yidhi dhayla liilaafuu dhintay ma lalahaa waa ordaya ya haddana waa noolyahay ma lalahaa uu yidhi lalahaa ilaa uu eryayahay isna wuxuu isleeyahay bal inuu ku yara joogsado uu yidhi war liilaafuu dhintay ma lalahaa haddana waa la arkay ma lalahaa marka dhayla liilaafi mise sanadood buu noolaa imise qof buu socnaa leeyahay ciidaa wax ka badan nin uu Yuusuf loo oran jiray oo waliba mareexaan ahaa oo yuflo ooli jiray raggii uu helay buu ka mid ahaa habeen iyagoo dab shidanaya afar daqiiqo meel dab ku shidanaya way ku soo dhacdaan iyagoo laba nin dee way qabteenoo xaabaday ku qalan lahayn bay noo soo gura dee si xaabadii uga soo gurin bay ka carareen aw Yuusuf habeenkaa sidii loo eriyey waanu mudxay waanu dhaga beelay dabadna markii dambe gortay ma Yuusuf baa lahaa nin waloo dheereeya wuu garanaya waxa la sheegi jiray qalatooyin badan doonan maqal xidhxidhiyo noocaas degdheer way dadka lagu cabsiin jiray degdheer way ka horeysay kuwan waa shalay dadka qaar waxay yiraahdaan waa iska beenbeen iyo wax caruurta lagu cabsiiyo waa dhab kuwan waa dhab way reerahay ka dhashan baa la garanaya raasaskoodii baa nool marka garhaye wuxuu kala baxay awooduu iska rogo jira ariga dabadna ribuu dhegta jiidi jir rida waa taqayl neefka riyay waa qayliya damarka dhegta la jiidi arka rida waraabaha marka loo soo baxo luqunta kala jimin jir dhagaaga fadhi wuxuu kala baxay halka qadaadka maarta halka ayuu dadka kaga yimin jir halkaas uu kala jimin jir halowle waxa nin booda dheer madax gorof meel walba nabar baa kaga yelo ka indhaha xune ka soo baxay TV noocaas oo ahaa فيلم ما laga sameeyay inaga dad qalatadeenu khatar bay heesay waka halowle ninka booda dheer buu heesay sidoo socday ku soo galaya isagoo iska heesaya kuwaasay ahaayeen baaciye isagoo nugaasha dhaxo ka kacay maxamed daalin baa Allah u naxariistay iiga sheekay isheleen maxamed daalin da 19 kii wuxuu aniga iyo ducaale cawadooyo oo wada soconna yaanu meel markii hore labada qalato looga hayaamay yaanu isnidi hoob badan baa markaas bal meesha u saan taga wuxuu saan u soconaynay yaanu geedkan higlada la yaado midhaha adduunka ugu macaan baa ka baxa heeli baa la heeli dadku ma yaqaan yaani xagga ay ka baxdo waa laga yaqaana laakiin galbeedkan iyo lagama yaqaanba heeliga ilaahay midho oo abuuray oo ka macaan ma jiro hal farood buu yeeshaayo markuu weynaado saas uu galgalo hal farood baa la yiraahdaa waxaad moodaa in hal farood baa la yiraahdaa waana lagu haraadaa sida timirta marka wuxuu higlo koob yaro higlaa oo wada casaatay waana isna midho u doonto iyo markaa soo midh waxba midh yiri waanu iskaga tagnay labadii naagood wuxuu halka awrada waxay falkiyeen oo deemay wax dhirta laga falkiyay caleenta dhirta baa ugu xiran yaa halka naasana culayskoodii waxbay ku xidheen biyo dhabarka ku xidheen marka dhar ma jirin adduunyada iyagu waa dadqaalta ma dhar bay doonaya way urayaan oo dadqaalta way wuxuu naagiba nayriyay way markii gaari waayeen bay baaciyo
من داونين ماشي وجه وحولي من أنا سنين وارد متجهل عور كل شيء كتير وأنا ما دحين سيسوقهم كرويني من بعض النصارى أنا وأنا سكوت بردنا مركوا على إنه النصارى يعني بعد على عودين وإيه إنك ردين وأكل بين الرسول إيوابي محمد هذا إيوابي هو تدقي لي بانوس النبي ومركز سلا أقوابي وسلا إلى دعاء هلقا قصور إذا هلقا سكت كقت لابي وبهلا هو تدقي لي وحيلا هاي لبا يعني حاجة كسب بحميسو حاجة الجيران بيكون هذا دين أنا كسب بحميسو لبا بدنا فهالشي هو تعود بعيتها سال قلت لي دبتنا ناقيه ويويا مع الدين فهالشي خالد الله يهذا وما نتاع نوغاني بيديك توجين تاني ما مخشى كوكاشاني نوقع كلمة دموش كوكاشاني نوقع وحيكون صباح هذا يا هل كان ما عورض أكتيدا أي ناق هوتا كذا على مركان ديك توجين كاي لا هاي بس ما هلا كوكاشا توا جل ترى حول عناني ولا مركود الله صباح يصير كوكادي توا إسكاه مدودي إلا هو حاركي قبل ده هو شيء هذي بداركه بس كوكاشاني نوقع ساس يكون صباح هذا تبغى ناقي ويكون كاتشين تتقل كي ويكون كاتشين تبغى ديك وتوصلي لكن بهالشي باك بحويدي هوتدي إن أنا بحويدي سيدي بكون أنت مركا ويكون كاي سيدي بكون أنت لمركز ما نسألي نقعد نقول نجيت شستي كو عدوي يسوون توك دير بوكا عدوي تبغى بري بوكا خير بو تبغى حالها يراعي تبغى ثنا خير لبغي يسبوتي ميدي ومدليس وناك عدو مدليس ميدي نوع دشة ناكتي مدليس كيد باقي لها يقول يبون يسجل لما أقول قرية علىها برعو بن يسجل تشوقا محمود دالين هلا لما أنا أقول إنه تدخل ياهي محمود بعد من الشويل ما نتي نمر كاسو كوكو دعي وقرنا يساعدوه لما أقول إنه تتصوعني محمود نوع عرورتي دجاج كان مركا ضدك وكلنا يبوها محمود دالين تيو يقانا لا يودن بو يقانا يحيى جريود ما راسو هو يري ما كتي ما إلهي قصة لي مدليس كهي لأنك هو تدقلي نكو يندق قدناي نكو الكعس هاي إلهي ناقتي هو كالي ذا كله كشفته تعرفت عشان حتى الناس كده مسكين لا إسكت أيانتي الدمان فيد أورتي أنت اللي أورتي ساعة هذه يعني أورا إلى ذا كوب كله حيي كوب إسا صار راي فريسي سبرار يدكس يمدينا ملبن سيدك يوح والله ما كان فيد كأورتي سوي بس أور كذي ما قدر أنا أور كمية تواني هالكن سوكر بس كالي يتوس هالكن تواني هالكن شو يسوي لا ذكرت مركو هالكن اللي شو كله في هالك هم حانو كهاد حانو كوجو هبين كيو دم بنشيله يشوف يبي سبق مدو بحال سبق مدو يا قولي يا هبين كسر وشيله يشوف يبي أيوة الله أكبر تكتشي سبرار كيسي بوحشني وواحد ولا بقول شراني سبق كل نوع والبلد لكن تسوي قدام يصير وحنو الساقي محل قلت سميه مركا ده محل قلت سميه حقي وكيميو ولا ديليو مال نقاشة سبوا أنتوا جيت فوري بوشي بروح نقاش وصل عليك كمان قبل إنن سيدتها ونك هذيك صوت ضدي بقى جيت كيتني مركز يستوي إنك الناس كود نحضر وطاق بدنا مركز فرتاي يستوي سان صفريسو يوجد كي كم صوت دقيقة سوي بده هرتي فريس لا يقعدنا كيقع تبغى دواك اللي قلت ما يقعدنا وأنا قرنا ساينو عناية جايينو فهاد دقل هاي ninkii dhalay ee gabadha qabay in adeerkiina waxa garanayeen cadowga ka horeeyay ka gaaray markaasal laba faras bay wataan siday u soo wadeen bay soo gaareen markuu arkay inay hayaan buu inankii ka dhibsoo la carar markuu arkay nimanka daminkii saarayeen buu inankii intuu lugtaa qabtay kii dhalay isla madaxa kaga ku tuuray dee kiina hawadu ka qabtay siday u horeeyeen bay ku dhufteen soo degistay ay soo degeen ayuu hadana la gaari waa waxaan midaahiil ka dadka cunay dhiigan lama bagaalo waa balaayo bahalaha bedel lama gaalo bahalaha balaaya wadata horta dad qaladu saasi u jir gobolkaasi ka kacay waa tahay waxa ay ka kaceen gobolka sanaag bay ka kaceen midna nugaasha ku qaadano oo nugaasha ka kacay dagdheer iyo waxaanu may soo dhawaan dagdheer waxay dhashay faahiye faarax biidi oo baha kamida taariikhda waa wallahu haya idla faarax baa yadii dilay inta istirooday qalo إلا فرح بعيدا بيدي واي مركزها فاهينا أو أيدا شينا تقدر مركز واحد كسوتشي ده سيدا عن تاريخ رقم مقلي قبل كسول بكسول ها
ولا قرنيا واتا شكلي دad qalatada intaasaynu ku baxaynaa hawayaankii kale iyo waxaasaynu daawadayaal waxaanu kaga baxaynaa inta sheekadii dad qalatada bal markana waxa aan rabaa inaan ku xijiyo hawayaanka ilaahay abuuray waxa uu la mid yahay dadka bini aadanka ah ee ilaahay abuuray xuquuqna wuu leeyahay inkastoo inaan inagu xuquuqdiisa dhowrin bal waxa xuquuqdiisa iyo noocay u kala baxaan ka hadlay abwaan aadan tarabi oo isaga lagu tilmaamo inuu suugaanta iyo af Soomaaliga iyo xayawaanka iyo dhirta intaba uu ka hadlay abwaan aadan oo ka hadlay xayawaankana wuxuu yiri sida tan horta wax inala nool iyo wax inagu nool ama inaga nool kuwan annaga inala noolaynina haddana idda waxay cunaan waxa aad adigu haysato ama dad ha noqoto ama xoolo ha noqotee bay ku nool yihiin qaarna way nala loon yihiinoo dee xoolaheennaba waa xawayaanka oo bisadaa iyo waxan dee dadku haysta iyo waa xawayaan haddana kulley xuquuqdooda lama marin karo dee xuquuqdooda waxaa lagu mariyaa qura xoolaha la dhaqdo oo dee matalan sida loo dhaqdo ama loo beero dee way yaqaaniin dadkiioo matalan waa loo kaltiriyaa waraabkooda marka la cabayo waa loo kaltiriyaayo dhashooda waqti baa loo eegaayo haddii ibadka leeyahay yani waa waxyaabaa jiro xidigahaasaa lagu dhashooda lagu beeraa xidigis iyo waqti iyo magaraysa seven baa lagu marka xanaanadooda kuwaa dee waa la yaqaanaa laakiin kolley xuquuqdooda looma dhameeyo waxaa la damdida ka qaribaa la marka maaragtay aad gowracayso waxaankaas waxyaabo badan baa jira marka waxa aan dadku aqoonin baa jira geelu wuxuu leeyahay kadin ariguna wuxuu leeyahay tiro kadinka geela haddaad maqasho waa markuu 100 iyo wixii u dhow ninka hebel geeliisu waa kadin hadduu matalan dhaafo dee 50 ama 60 badee gaadho oo meelaha yaa cagacageeyo kadin baa la yiraahdaa arigana waxa waa tiro oo 100ka tiro laakiin xawayaanka lama kala yaqaano kadinkiisa matalan waraabuhu kadin buu leeyahay markuu deedhay libaaxu waa leeyahay deeradu waa leedahay cawshu waa leedahay garanuugtu waa leedahay biciidku waa leeyahay yani qorayadu waa leedahay okay maroodigu waa leeyahay maroodiga kadinkiisa dadku ufanaaga waxa u yaqaaneen wax yar hoos nin Axmed Dirir la yiraahdo reer Soomaal nin lubahanta abu ahaa yaa gabi tiriyo intuu reer soo tiri wuxuu yiri dadka ufanaaga hadaan adjir weytiisto ufanaaga marka waa dad la liigayo isagu marka laakiin abwaanku inuu mucjisay maxaa ufanaaga la baray waa nin reer miya xool dhaqataa markii soo ufanaaga maxaa baray way bal Axmed Dirir yaa ufanaaga baray وأنا غير مو هذا أمر ريال سامع تمام على كل حال يعني مركز سولي أبترسيمه بقى هذا هذا عربي هذا لا ندير دونا لها الكلية هذا أنت تخيل ريال صح أنا صو أمريكا جورسن لها نبتة سيما قارين أبترسيمه لا ندير أنا دون تاي هذي هذا عربنا واقي كلها ما أنا دبّا دول السكولة أفوفايا ما ذي كتير هذا قد بعض العرب ودور أنا قاعد لسه كلها تطلع تشيل marka bal waxa yahay Axmed Dirir maxaa fanaaga baray oo fanaagu waa kadinka maroodi markuu 100 day waxa uu dhow yahay yaa uu fanaa la yiraahdaa kadinka geela maxaa la yiraahdaa isaga kadin baa la yiraahdaa marka xayawaan kan kale kadin geela un baynu maqalaa ha iyagu malaha miyaa kadin waa uu fanaagaha mooyaan waa wada kadinkan maroodigu daaqa wuxuu dhigma kadinka geela marka uu fanaago 100kiiba u dhigma absolutely waa tahay 100kiiba u dhigaa sax gorayada baa la koola la yaa kadinka baa la koolo waraabaha hulufa baa la yaa kadinkiisa libaaxa raxan baa la yiraahdaa isaga iyo yeyda mid walba raxan baa la yaa kadinkooda labadaas waa isku mid kow libaaxu afar magac buu leeyahay ninku laba magac buu leeyahay ninka weyn wax la yiraahdaa ar markuu dhalinyarada yahayna dee dagaalka tagay markaana gaani baa la yiraahdaa gaani tadidig markay weynaato biranbirqa la yiraahdaa markay wali gaani oo kale tahay dhalinyarada tahayna gool baa la yiraahdaa
واتجينا لو جهسوا أيضا جوشيو جاني جهردان جوبا بيوها وجلين جري أنا هيجي ما مركا ولي آريا ما ينقم برقو يا ودان لي يرد مركا كعيو كالي يرك تجيان كودي مركا يكو السؤال على كل حال لباحنا رحم بالي يدنا رحم قرنوكتي وحلا جاديال كذن كذا قرنوكتي وجاديال جاديال تيرادنا وحلا أباسة كذن كذا عوشنا وحلا يا قول أبيب ها بعيد كوحلا وريلو كذن كيس كو بل وحلا صهد وحاسة مقعة وعدنا عيدو دي بقى مقعة يا كلا له كو قريضو dadku wuxuu yaqaanaa goray haldhaa iyo goray yacawl waxaa jiri mid saddexaadoo dabar go'ay haldhajaa loola jiray haldhaji lama helay ma uu dabar go'ay kow waraabaha kadinkiisa hulufaa baa la yidhaha codkiisana waxaa la yidhaha وشيري بالله ورا وعد واي جود واي bahashan la yiraahdo ii sheeg bahashan maxay bahashan wiisha codkeeda hanqad baa la yiraahdaa haddaan kugu hanqadho mawjadaad ku hafad doontaa in Cabdullah Xasan hanqad wiisha codkeeda wiilka lab codkiisa aad buu kululiyay bas rabbaay haddaan kugu hanqadho waa kale yaa سيد كو مروديغا markay orgoonayso tadidigi wuxuu leeyahay Cabdullah Xasan hurdub gari haraatida lugeed qalanka heeraaya waa qalanka orgoonaysa meel walba waa jiraysa kow marka kadimadaynu ku soo noqonaynaa inta soo dhan waxay ka socotaa مثل بعيد كانوا وريلو كلمة دو حفلة يمان شيء ورابها وشيري عدكي سنوا وشيري يسقونه وهلفاء مركا سريان كواحد يسقونه مثلا هويا وإنك استود وريلو ويهيد كذي كبعيد سريان كانوا يسق سريان كانوا عدكي سا ماي سيدي سويان سريان لو يلحظة بعيد كسريان ليلة بعيد كسريان لو يلحظة وما قعيس كله سريان كود سريان كجود ويا كو قريقة كيس هلا وحلا سيد كبدا تدينا سيا لا سيا بالا يلا عشان ويشه كلب وحلا وبر ددقنا دري بالا يا دري ما قرأت لكن ورابه ما قاعد جود ورابه نيك الدروع بالله كده ديك عند الدار بالله يا كبدا بدأ تشرا وحبا كده حيوني الناق بقى هو كي انت ده فولان بدو البيد انت ايش سمان كوتشوتش ورابها هذه تشرا وحلا نين الناق بيسكو تشرا بدأ يسكو تشرا midna waa lab kaliya midna waa la dhadi kaliya waata intaaba wulay way maroodiga haray maroodigu waa uu fanaa kadinkiisi marka isaguna dhadigiisuna waa qalanjo labkiisuna waa arbe maroodigu de waa kan weyn ee xayawaanka ugu weyn Soomaaliduna gabadha jalaqsan bay qalanjo tiraa waani dalkan waa foolxin marka Soomaalidu miyaanay aqoonin inuu maroodigani wax weyn yahay intay gabadha qalanjada ku sheegayaan kelmadan qalanjo ayuun baa wanaag carabka laga raacaya qalanjo waa marodigaas wax ka farxin ma jiro marka waa inaan gabdhaha loogu magacaabin absolutely waa aad iyo aad bay u farxinta laakiin kelmadda carabka qalanjada carabka ku qurux badan ayaa carabka ku qurux badan laakiin waa baasha dhexda weyn isku boqoran qalanjadu marka Soomaaliduna gabadha dhexda yar inna lillahi bay dheer bay u yaqaan bay qalanjo u yaqaaneen isku noocna ma aha saas ku tahay Soomaalka la yiraahdo waa goodirka waxa la yiraahdaa ninka waxa la qarbabaale goodirka qarbabaale la yiraahdaa kowdadii
والقبضينا هكذا كل كنت عليه وأنا يجي يعني وهذا إلهي وحى أبورنا وحى وجهنا صحن بالك اللي يقول بري منك واحد دقيق بلا دقيق يسوق ما له حق كذا ما يشوف وحى سرعة إن يرى ولا يسكن إسنا شيء أفر كمان بطه مركب محوكة هنا سيا جمبريو وحكاه مساس كوس حكله ها وحكاه هنا سا إسكت واحد كله تا وطه إلا صعده المهاي دشوا حدول لب نقده هالك سوق الدلية مركب فوش سوا هيسو ويكلا تكتار الله يكسر دشها مركب الله يكسر دشوا حدي بدك دشنا ويوكلنتا حدي لب نقده واحد بحصلتا إلا أنت ويناني أبيش كعلني هذيك هالك سوق الدلية خطر عظيم خطر عظيم هنا سحب جمبريو كاني هنا سحب وبهالك وجحون جمبريو وي ها شو هذا قرأت معه وين قرأت ما حكلو شرته haddii la xitaalaysaado qabta oo la eriyado la soo qabta lama qaban karo halkaas uu garka wadu isku dhufanaya qoobka isaga dhufanaya dig say istilay wabalka noocaas xamaarnimo intuu ka qabana dawana xamaarba waxa soo dhan masayr ba ku kalifay waxa soo dhan ma qabashadan wuxuu diidaya in la qabtaba uu diidan sida ragga ninka geesiga dagaalada ku jira ama jawada isagu isu dilay marka arday la qabanayo waaba mujaahid xayawaanka intaasaynu kaga baxayna waxa jirtay suugaanaad ku cabirtay iyaga laftooda gabaygaas bal noo mari sida wabar gantaalaha bay dari ku ganayo maal maray gamuunkii isaguna garyaa geeska u miciinsaday geesku ku dagaalamaa oo geeska mar hadduu kula helo urumo dhan buu geeska ku kicinaya ama dariiqadoodo waa dhidigii ama dariiqadoodo intuu gaadi raadsaday ay uga golleeyiin gaashaan lagala baxo gocashada codkiisii kay dhamay hanqaray wabarka waa gocashada codkiisii kay dhamay hanqaray wabar waa codkiisii iyada dirla joog baa la yiraahdaa dirla joog ninkana dangiig baa la yiraahdaa marka intaas dhashin baa wada socota waa yahay ama waa gadiisii arbe qalanjo gaato isagoo aan guda gelin guuta uu fanaayo waa uu fanaagay kaas kadin godob la kala qabi waa kadin qolo hore godob ay kala qabeen waa laba qolo kadin godob la kala qabi guluf ugu yimaadeen gartaro iyo xoog iyo oo ay gaf ula kaca guri bay ka yeeleen yaa gudashadii arbaha iyo gogoshii qalanjada iyagoo wali isu iman yaa qolo kale oo fanaagay ka mid oo muddaadii col aha u timiyo digada laga dhigay halkaas gurigii qalanjada iyo arbihii digada kaga dhigay ama garangar socdo guud ahaan wariila ah waa biciid wariilo guud ahaan wariila ah gudban uu xilligu galay tanqaydii go'aysiiyo tanqay waxa weeyaan biciidka dhidig tanqaydii go'aysiiyo oo ahayd gaboodko saryankii ka gabashiyey yaa kala guriyey jiilaal oo saryankii waa biciidkii saryankii waa ka gabashiyey markaa jiilaal baa kala guriyey ama siig waxaa la yaadaa liig siig waxa weeyaan siig waxa weeyaan gariga ninka ayaa siig la yaadaa gabadhana seeyaa la yaadaa iyadu geeso ma leh isagu geesu leeyahy ama siig ay gogol hadda waa libaaxaddii dhidiga hayda yaray ama siig ay gogol iyo aar isugu gurmadayo durba geelile furuugeen هذا سيدي وسينا وقبضي سيدي نقربيو كان أنا فيدين قلت الرئيس تيجي أنا قاعد بعد حرن واحد قال لي سوي سكر يعني إنك اللي قد لي أبسولوت واي بحالها ساكا علي وانك حمار مركبات تيجي قلت أنا قاعد بعد حرن واحد قال أنا سوي صدق سوري دسيو أبسولوت واي أما قوسن ما صار قال أبيب شحاركي وعوشي يا أما قوسن ما صار قال أبيب شحاركي ودن شري
oran jiray ka gaabsho gooni daaq u golan golay gawaan raacshay fiidnimo yaa gaboobayo jucuurkii da'diisii ku tamar gabay marka waa cawshiyo jaxaarkii wadan jiray mid dhalinyaro holayaado daraab baa kacay oo wixii baa ka kaxaystay ninkaasaa dhacay ka dareersado da'daadaa ku gabtay halkaagaa joog buu yidhaahday halkaagaa joog kii yaraa baa ka kaxaystay haa ama goray dhashiisii dhegay ama goray dhashiisii dhegaygeega cidlaahiyo goobuu ku aaminay dabadeedna laga guray gaaf wareegay caladii gidib baallakooladii waa kadinkii gorayada ee dhammaa ayaa baallakoola kadinka goraya gidib baallakooladii yaa didayo gig wada tidhi yaa waa la wada adee cadhooday haldhajo uu ku guuxiyo haldhajo waa kii dabar go-ay haldhajo uu ku guuxiyo waayay goraya cawlo yaa gabal meeshu ugu dhacay gudurro ugu soo galay yaa giidaba ha badiyee codka gorayga waa hallib baa laya codkiisa daawadayaal barnaamijkeenii bandhiga oo maanta uu inoogu marti ahaa aadan tarabi wuu qaybo badan yahay barnaamijku marka aan maqashaan aadan tarabi hal barnaamij iyo laba midna kuma dhammaan karto qaybtan caawa intaas ayaan kusoo koobaynaa toddobaadka dambe haddii allah awoodda la ogolaado qaybta labaad ayaad la socon doontaan aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeeni intaas ayaa ku dhan yahay daawadayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybtii labaad ee aadan tarabi anigoo aad iyo aad ugu mahad celinaya abwaan aadan tarabi dhanka kaamarada iyo isku dubaridka waa Faysal Fifa barnaamijka waxaa inoo fidideeyay Mansoor Hotel oo isagana aan si gaar ah ugu mahad celinayno aniga oo Deeqa Maxamed Qalombiya ayaa idin soo tabinayay teeriya intaan ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan